الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلسلة يروكوبا وإن شاء الله تعالى أنك قاهد لأنه دومرك هوينك إيا كالنت إسلامك إيا دعوة إيا دينت إيا علمك إيا أقوانت إيا فتوة إيا كلها إن شاء الله تعالى waxaynu muujinaysaa dumarku had iyo jeer islaamku ilaa maalintii uu bilowday inay kaalin weyn dhinac walba ku lahaayeen waxaan xusuusanahay ummahatul mu'miniinkii xaasaskii nabiga calayhi salaam umana Aisha radhiyallahu anha cilmiga sidii u faafisay taariikho kala duwan ayaan rabaa inaan ka soo qaado insha Allah taala maanta waxaan idin qaadayaa magaalo la yiraahdo Samarqand iyo Halab inta u dhaxaysa oo hadda Suuriya ku taala Samarqand waa xagee magaalada Samarqand la yiraahdo waxay ku taalaa hadda dalka Uzbekistan magaalooyinka ugu waaweyn ayay ka mid tahay taariikhdeena leedahay magaaladaasu gabadhan aan ka hadlayno ee la yiraahdo Fatima bint Muhammad bin Ahmed bin Abi Ahmed as-Samarqandi waxay ahayd gabadha Faadimo nin sheekh ah oo caalim ah ayaa dhalay iyaduna waxay noqotay sheekhad caalimada oo muftiyad ah oo taariikhda islaamka gashay cilmigana wax badan ka faafisay inta aanan u gelin taariikhdeeda wax yar magaalada Samarqand aan ka tilmaamo magaalada ay ku caan baxday ee magaceedu ay xambaarsan tahay magaalada Samarqand saan sheegay waxay ku taalaa hadda dhulka la isku yiraahdo Turkistan oo dhinaca China iyo dhinaca Ruushkii hore ku olayd haddana waxay tahay wadanka la yiraahdo Uzbekistan magaaladaas magaalo weyn waaye ibn Battuta ninkii dhulka maray oo carabka ahaa reer Marocco ah wuxuu yiri innaha min akbar almudun wa ahsaniha wa ajtammiha wa jamala yani waxa weeye magaalooyinka ugu qurux badan oo ugu ballaaran oo aan adduunka intaan maray aan arkay tog dheer ay xeebtii dhexdiisa ku taala waxa ku yaala guryo aad u waaweyn oo qusuur ah iyo dhul handasada lagu dhisay aad la yaabayso buleey islaamku waxa uu furtay sanadkii marka la yiraahdo 780 hijriyada ama 290kii waxaana furay Qutayba ibn Muslim al-Bahili hogaamiye la hijray qisayna lahayd furashadeedu magaaladaas markii uu soo galay isagoo dadka u digin oo dadkii gaalada ahaa ee deganaa aan digniinsiinin sida islaamku qabo ayuu magaaladii galay oo xoog ku weeraray waana qabsaday kadib dadkii magaalada joogay arrinkaa way ka xumaadeen waxay dhexdooda maqleen ninka amiirka u ah isaga madaxda u ah ee amiirul mu'miniinka ah ee muslimiinta u taliya ee fadhiya Sham Dimashq ee waqtigaas wuxuu ahaa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala inuu yahay حاكم عادل ayay maqleen waana duul gaala ah marka waxay yiraahdeen aan qof u dirsano aan uga ashtakoono ninka madaxa u ah muslimiinta nin bay soo direen Dimashq buu yimi Dimashq markuu yimi Umar ibn Abdul Aziz buu la kulmay ninkii ergada ahaa wuxuuna uga ashtakooday arrintii uu sameeyay abaanduulaha ciidankiisu ee Samarqand oo xoog ku galay Umar ibn Abdul Aziz dacwadaas markuu dhageystay wuxuu soo diray warqad buu soo qoray warqadaas wuxuu u soo qoray qaadigii joogay muslimiinta ee Samarqand joogay markaas areadaas qaadiga ka ah qaadigii buu soo diray wuxuu yiri dhageyso ashtakada dadkan reer Samarqand iyaga iyo abaanduulaha Qutayba ibn Muslim waa inaad u garnaqdaa oo kala xukuntaa sida kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalin dambe maxfil weyn la isugu yimid magaalada Samarqand haddii la isugu yimid maxfilkii weynaa qaadigu wuxuu leeyahay askar iyo dad la shaqeeya ninka la shaqeynayay ayaa wuxuu yiri Qutayba soo istaag ma jirto amiir iyo hogaamiye iyo waa nin dhulkaas oo dhan soo qabsaday ilaa iyo China xuduudeeda ilaa iyo Hindiya ilaa iyo dhulkaas oo ninkii soo qabsaday waa Qutayba soo istaagay dhinacan waxaa soo istaagay nimankii gaalada ahaa odayaashoodii madaxdoodii ayaa soo istaagay wuxuu yiri dadkan waxay sheeganayaan Qutayba inaad xoog ku soo gashay ma jirtaa wuxuu yiri uma aanan digi karin magaalo weyn oo waxa weey qurux badan magaalooyinkii ku hareereysnaaba
way diideen inay ama diinta soo galaan ama jisi ay bixiyaan dagaal bay doorteen iyadana waxaan islahaa dagaal bay dooranaysaa saas darteed ayaan si kadis ah u soo galay si aanay iyagoon isjirayn wuxuu yidhi arrinkaasu kuma bannaane ma waxaad leedahay adigoon u digin oo diinta ugu yeerin oo kala dooransiin diinta iyo jisi inay bixiyaan ayaad soo weerartay waa sidaan kuu sheegay buu yidhi haddee ma iyan macnahaas waxa weeye buu yidhi inaad qiranayso inaad xoog ku soo gashay adigoo aan u digin waa sidaas waa dhammaatay buu yidhi marka mar haddii la hayo qiraal dee qoladan waxay sheeganaysay ninkii lagu sheeganayana u qirtay waxaan xukumay buu yidhi in adiga iyo ciidankaaga iyo inta kula socotay iyo intii aad keenteen dhammaantiin aad magaalada ka baxdaan sida ugu dhaqsi badan berinaan gabalku idinku dhicin xukunkiina waa dhammaaday subaxdii waxay maqleen qoladii reer Samarqand ciidankii oo magaaladii ka baxayay oo bustu isqabsatay oo dadkii ay wada baxayaan oo magaaladii eber ay noqotay way yaabeen war sidee ku suurtay ma ninkii aan arkayni iyo wixii aan arkayni ayaa cadaaladii islaam markaasay iskood u soo islaameen sidaas bay Samarqand magaalo muslima ku noqotay culimo badan baa ka soo baxday oo waxaa ka mid ah gabadhan aabaheed maxamed ibn axmed oo kitaab weyn oo fiqhiga xanafiyada oo tuxfatul fuqahaa la yiraahdo iyo kitaabo kaleeto la alifay sidaas oo kaleeto culimo kaleeto in la yiraahdo axmed ibn umar al-ash'ath baa ka soo baxay caalim kale oo la yiraahdo abul fadl as-samarqandi baa ka soo baxay 444 hijriyada dhintay isaguna kadib Samarqand waxaa qabsaday magaalo muslim bay ahayd muqulkii baa mar qabsaday kadibna waxaa qabsaday ruushku markii thawradoodu qarnigii 19aad markay bilaabatay 1918 dagaaladii adduunka ee koowaad markay dhamaadeen ayay qabsadeen magaalada way la wareegeen magaalada markay la wareegeenna ilaa iyo 90gii ama 92dii markii ruushku dhacay sidaasay ugu xirooday dawlad gaar u noqotay xaggaas waa inta taariikhda magaalada Samarqand iyo furitaankeeda gabadhan marka فاطمة بنت محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي بعد يراهلا وحي دمتي 560 هجرية أي دمتي قبل مقالة داس بيكون لاتي نرجع تركستان مقالة اللي يراهلا كاسان سمرقندي رأسا أبهد عن المحدثة أو فقيه سدعان شاقي فقيه الساقي كبرتي إن كتاب كيسة تحفة الفقهاء ويبحفظي أو قربي كواليسي saas darteed aabaheed baa markii dambe kitaabkii isagu uu alifay iyo fatwada u kaalmaysan jiray iyada marka cilmi iyo akhlaaq iyo fiqhi iyo cilmiga oo ay jeceshahay ayay gabadhaas ku kortay iyada oo sidaas u haysata dad badan baa ka soo doonay aabaheed laakiin ma uu yeesinin niman amiir ah niman boqor ah niman waxaas uu diiday fatwada markii uu fatwoodo ninka caalimka ahi gabadhiisana فتوى وي دين عادي كسحيح جرتي فتوى لبضوض مقع عودي كسو بحي جرتي آخر كي واحد جري ويل أرضيدي سكملة والله يراهضو على الدين الكاساني نكاس وحو اللي في كتاب وين وكشر حي كتاب كي شيخ عيسى تحفة الفقهاء والله يراه بدائع الصنائع وانا كتاب إلى هذا مطبوعه اللي يقانو وفقه حنفي كتاب بدأ هو وين كملة ومجلدات هو وين كتاب كاس ويلكو ألفي وضو أدبو وفرحي قبل نوو سيي مهر نوو وقال لي كتاب كاس أيام مهر ونوضي كتبنا إيادي ننكيدو ويكي مادين دينعاس إيو سمرقند وحي مادين دول كان شام دمشق إيو حلب إيو دول كان بي مادين وحلقي وجوغي نور الدين زنكي إيو صلاح الدين الأيوبي رحمهم الله لبا أمير وحكام ووين وأمير هذه المسلمين تاهاي وويناي معروف كاها مركا إيغونا ويلا تشين جرين فتوى دي كقادين جرين تلوين بدن بيسين جرتي ومسائش الدين قابي ويدين جرين وي كقادين جرين ويو إيمان جرين إنay ka qaataan kadibna waxay ninkeedii ku qalqaalisay inay dhulkoodii ku noqdaan waxaa maqlay imaam nuuruddin ama khali ninkii amiirka ahaa nuuruddin boqorka ahaa wuxuu u tegey wuxuu u dirsaday ergo inay joogto magaaladiisa iyadoo mukarramad ah wayna ka aqbashay kadibna halkaasay ku dhimatay xalab 581 iyadoo intaas cilmiga bixinaysa
fatwada bixinaysa arday badani ay ka aflaxayaan kadibna halkaasaa lagu aasay ninkeedii Calaa'iddiin Kaasaanina raxmatullaahi calayhi wuxuu dhintay 6 sano iyada kadibna wuxuu dardaarmay qabrigeeda agtiisa jacayl baa jiray in lagu aaso halkaasaana lagu aasay intii uu noolaana jimco walba qabrigeeda u tagi jiray oo soo siyaarin jiray oo u ducayn jiray gabadhaas waxay ahayd Faatuma binti Muhammad Samarqandiya caalimada ah sheekhada ah muxadisada ah muftiyada ah dumarka muslimiintu marka sidaas ayaa taariikhda ay ahaayeen maantana la doonaya inay noqdaan intaan mar kale ku kulmi doono insha Allah taala khayr baan idin rajaynaya waxaan idinkaga tagay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh